maxkamadda ciidamada Puntland ayaa maantay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ku toogatay 18 qof oo dhawaan lagu xukumay dil kadib markii lagu helay inay ka tirsan yihiin al-shabaab isla markaana ay dilal ka geysteen magaalada Gaalkacyo. Laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii maxkamaddu ay raggan ku xukuntay dilka. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee maamulka Puntland gaashaanle sare Cabdullaahi Shire Maxamed ayaa warbaahinta u akhriyay sida uu dhacay xukunkaasi dilka ee lagu fuliyay 18 rag ee ka tirsan al-shabaab. dilkiina waa lagu fuliyay hawshuna si wanaagsan bay u socotaa ma sha Allah baanu leenahay kuwii ummadda islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Puntland iyo dhammaan Soomaaliya dhibi jiray waxa weeye xaqii baa la waafajiyay waana la laayay ma sha Allah baanu leenahay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta ay taariikhdu tahay 27 Juun waxa la fuliyay 18 xukumane oo ahaa khawaarijkii banaysanayay dadka dhiigooda sida arxandanada u leenaysay ayaga dhuumashay wax ku dilayeen laakiin dawladdu waxay u dishay si bareer ah nimanka dhuumashada wax ku dila waxa oran lahayn dadka shacabka reer Puntland gaar ahaan gobolka Mudug waa tuug dhuumanaya war hooy baa ku filan hadda kadib ha ka baqina waa ciistaas arxandanada dadka u dishay tuugnimada ku